deegaanka Coodanle waxay isugu yimid badi dadka ay abaartu saameysay waxaana ku sugan xoolo tiro badan oo ka yimid deegaanada bariga Somaliland taasi oo sababtay inay xukuumaddu ka hirgeliso deegaankaasi riig biyood. Haddaba riigaasi oo muddo shaqaynayay ayaa waxaa ka soo yeedhaysa cabasho ku saabsan biyaha uu riigaasi soo saaro. si aan u soo ogaano xaaladda riigaasi ayaa waxaanu booqanay deegaanka Coodanle. Waqtigan aanu gaarnay ceelkaasi ayaa waxaa ku sugnaa xoolo tiro badan oo laba caana maal sugayay inay ka cabaan, sidoo kale waxaa wehelinayay dhaamam tiro badan oo iyaguna safka ku jira. Waxayna dadkii deegaankaasi noo sheegeen inay biyo yaraani ka jirto ceelkani, iyaguna dadka qaar ay sheegayaan inuu ceelkani si fiican u shaqeeyo marka ay wafuud ka socoto xukuumadda Somaliland timaado, balse intaanay iman uu ceelkani yahay midaan gebi ahaanba sidii loogu talagalay u shaqaynayn. Iyaguna intaasi ku daray inay biyuhu uga yimaadaan deegaankani magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, taasina ay ku tusayso xaaladda uu deegaankani ku sugan yahay. waxaanu maqalnaa shiidan iyo Coodanle biyo male iyadoo naloo yeelayo ceelka riiga anigu waxbaan ku arkay maalinta wafdi timaado wasiiradu yimaadaana hal malaayiin xoolo abaa ka fulo bad buu noqdaa. maalinta dambena halka u dambaysa la dhigaayo xoolii waa ku jabeen. riiga horta waan ka cabanaynaa. waxaanu u sheegaynaa dawladda iyo war-saxaafadeedkaba dadka waxaanay hormuudka xoolaha reer miyiga aad iyo aad baa xooluhu meesha ugu raagaan wuuna dhiban yihiin. geela waxaanu keennaa ama 7 habeenimo ama 6 isagoo 8 habeenimo ka baxa ee dambe isagoo ka baxa. biyihiisu dadku waxaa yimaadaba dad aad u fara badan maantii ilaa 40 geel baa yimaada ama 50 geel. dhaanku maalin dhawaytaanu tirinay 120 awr oo dhaan ay yimi oo aan dameeri lahayn. maanta oo kale maalinba sibay u dhacdaa 7 casho, maalinna way yar tahay maalinna way badan tahay. maalintay u yar tahay ilaa 20 geel ilaa 30 geel baa yimaada oo ku gabaldhacsada. riigan baan idinka warramayaa. riigan horta marka horeysa dee waa nimco alla keenay, biyihiisu waana soconayaan, makhluuqiina uu ka farabata. imika cidhiidhiga riiga cidda saartay waxa weeyaan wax ilaale wixii kinilka isagoo culayskiisa hore badnaa ayaa wax ilaale wixii kinilka dheel isugu yimaada. hadday adduunyo tahay, hadday gaadiid tahay, haddii alla kuriyo dadna sidaasaa waxa keentay dee in baahidii ay cidhiidhi noqoto ma og tahay. dee riigii isagoo soconaya haddana cidhiidhi keeno oo biyo laga waayo. xalay waa ogeydeen 9 habeenimo yaa geelu cabay, 9 cabay. marka waxay noqonaysaa markaa xoolihiina waa xoolaha iyagoo biyo loo qaado mooyaan aan wax meel gaadhayn. dadna baahiyaadkii baa dadna saa ku imanaya ma og tahay in gaarigii biyo loogu qaado dadna gaarigiina loo waayo. marka xoolaha riigii qabsadaan oo dee meel la isu mara la waayo. biyihii xalay booyadii laga soo diray Burco waataa lagu wareejinayo. maamulaha ceelkani mas'uulka uga ah dawladda ayaa isaguna dhankiisa sheegay inuu ceelkani si fiican u shaqaynayo, balse uu hal matoor oo kaliya u shaqeeyo, taasina ay sababtay biyotooriga ceelka mas'uulka uga dawladda iyo deegaanka iyo ummadaba. marka ceelkan dhibta haysata waxa weeye hal face qura. faceka labaad soo raacana waxa weeye ummadii oo ka tanbadatay. ceelkan biyihiisu marka levelkiisa la eego 3 maalmood iyo 3 habeen test markaan ka qaaday wax ka dhacay ma jiraan. bamkii hoos ugama dhicin, levelkiisa buu taagan yahay. 6 mitir kuyuu baa ka soo baxaya saacadii, 6 mitir kuyuu. waxaa taa raacday matoorkii labaad wuu fadhiyaa. matoorkii wuxuu noqday naf keliya oo aan ku shaqayn karaynin ummadda intan la eeg u shaqayn karayn. markaanu ku tacadinay labadaanu baktiinaa habeenimo. markaanu istaadhno 2 maalinimo waa 12 saac halkaas. 6 subaxnimona waa istaadhnaa 12 kaanu baktiinaa. taasina tacadi bay ku tahay isaga laftiisa, matoorka laftiisa. ummaddiina saacadahan laga baktiinaayo yar aanu anagu mashiinkiis leenahay dan uga dhiga waxay ku tahay ummaddiina dhibaato oo ummad xamili karaysa maaha.
inay biyuhu yaraadaan. Si kastaba ha ahaatee riigbiyoodkan oo lagu tuhmayo inay dadka deegaankani ay biyo ka helaan ayaa quus ka taagan inuu noloshooda kaafiyo, waxayna biyaha u doontaan gobolka Togdheer iyadoona ay xukuumaddu ay weli ku adkaysanayso inuu riiggaasi si fiican u shaqaynayo. Shaafici Maxamed Ibraahim, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.